knn. koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan. haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane. wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane. intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan. si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan knn. aryaadaha kalamaaney dadku ayaamahan waa naga xiraayeen haddana sidooriyay u xiran yihiin waxaan sabariga la yaabay xoolihii lagu qalay kawaanbari hilibkoori baabuurti lagu soo qaada sanca waa soo dhaafi waayeen oo suuqa waa la keeni waayey hadda haddii hunguri idinka haya sancuugu taga hilibkaa soo qaadha war iska daa dadka waddooyinka xirta wax ka hilib cun badan lama arkay meeshay ka helaan aan ogaane wareekii geerada faranjiteeranka jaray ada faranjiteer leeltahay war cawska iyo qoryihii iyo caanihii yaa la soo geli waayay beledka maxaad hilib ka rabtaa war jeedka xiran bajaajlayda baa ka faa'iiday guddoomiyihii gobolkuna wuxuu yidhi 3 bilood canshuur ladan kama rabo wiilkii la dilay magtiisi miya war wariyihii turkiga lagu dilay Jamaal Khashoggi magtiisi dawladda Sacuudiga way bixisay war Soomaalidu waxay tiraa nin meydkiisa la arkaa magtiisa la qaatay agee lagu duugay waxa kale Soomaalidu tiraahdaa mawd ma murmo war ma haysiine ganacsatadii waaweyneed ayaa cabanaya ka dhaaf kuwii danyarta ahaa waxay leeyihiin beledka wax kala socda ma jiraan waxayna eedayn u soo jeediyeen guddiga ganacsatada iyo madaxda rugta ganacsiga waxayna yiraahdeen meeshay dawladda naga difaaci lahaayeen oo dhibkan haysta u sheegi lahaayeen ayagii baa jaabkii dawladda galay waxayna yiraahdeen canshuurtana laga qaado ayaa qayb laga siiyaa sahanyim han iyo hunsul boogle muraada lanshumiya waleeri warka naga dhaxgelina dhageyso waxaan arkay mid kamid ah oo gabay tirinaya wuxuuna yiri gabayre galaambe iyo gooni maahan gacalkeen god bay nagu rideen oo waxbay gurubsanaya aryaa war ma haysada 3 ga'a loo bixiyo nimanka ay ka cabahayaan war adaan war hayna 3G weeye magac war dawladdan dabal ana la yiraahdaa goorma 3G lagu soo daray war kuwa qaraxyada sidaba SIS baa la kala yiraahdaa ardadii yaryaraad ayaa xitaa iskuulada tagi waayay oo gudoomiyaha gobolku bajaajtiiba canshuurtii waa ka daayay ardadana mu iskoolada ka fasax nimbaceesantii ceelkeenan maqli jira war mahmaadanka dheelo waarto lanje weba ororiya leere war horta dawladdu dambay bidda inay dariiqyada xirto dadweynahana dambaa hayso dariiqay maraan rabaan marka waxaan ku tali lahaa dambiilayaasha raba dariiqa inay qarax soo mariyaan inaan dadweynaha loo cinqaabin oo dawladdu dagaamada ay joogaan ugu tagto anigana waxaan ku talin lahaa amni aan loo dhibaatoon lama hele wax kastoo laamaha amnigu dan moodaan inaan u dul qaadano dhib baa nagu ahaadeen war aan la helo dhilmaanyo lama is dhiiba ka dhimadaas leeri dulqaad waa noogniya carad ma cuneyna anna waxaan ku dari lahaa wax daruufo keenta jiroy danuna yeelsiine dariiqyada haddii laga xirxiray shacabkii soo daalay iska sii dulqaata la yidhi roobku waa dii aniguna intaas ad sheegtay waxaan ku sii dari lahay how dadkeennii daalanay miya darxumaa loogu sii deera dadkaanyii daalanay miya darxumaa loogu sii deera aniguna intaa waxaan ku dari lahaa dadka kale carruurtuu dhalo ayuu cadan u dhoofshaa warcadanta qowdhan sheegay baan ku xasuustay ceebta ugu darnayd Soomaali maantaan maqal Soomaali xuutiyiin u dagaalamaysa ayaa Yaman lagu laayaa la yiri marka waa yaabe goormee Soomaaliyu shiico ku biirtay sheekh firshunuga ku raac warniyo xuutiyiin baa ka hadlaysaane xuud baa liqay jacaylkii war Soomaali ceebu ma karto ninkii caroodaba waa ciidansanaya war anigu waa yaabe awal madameero hogaana horta mugaan maqla 30 Soomaaliya oo xuutiyiin u dagaalamaysa Yaman lagu dilay aad iyo aad aan uga xumaaday qalbiguna way rog-maday waxaana igu soo dhacay gabay yamyamtiriya hadda ka horoo ahay baalaleyda duushiya dabka howtul hamaguba daf waxay u leedahay janna doonadka ma ah alhawa walbaciid walmeed qadiin wala yiri aryaa baciid waa la qashaahay dad iska gubahaya aniga calooshiiga gadihaya war markii kuwa Soomaali oo shii dagaalmayaan aragi dadka hatirooba gurbaanba buglansi ino ka hoobadayaan haatana indareeme war shabaab iyo daa'ish kuwa u dagaalama iyo kan shiica u dagaalamay maxay isdhaamaan war markii sanari jirtaan way kudka guur ee qanjaw guur waaye war ma haysiina nimanyo koofi dadaalkii waayahan waday waa ku guuleystay dawladaha Belgiumka iyo Luxembourg ayaana baasaboorka Soomaaliga aqbalay
galay waxay dhaheen maanta kadib fiisahan ku bixinaynaa. aryaa fiisa armoonaha waa gardhaye bayskana meeqay ku dhiibayaan. warnimayo wararka aad sheegaysaan aniga mid kale iga ciil badan. gobolka Gado xarumaha shirkadda Hormuud Kenya maxay u burburinaysaa? Safaricom iko wargeeli iyo dadkii ay duqeeyeen markii lagala hadli waayay ayay shirkadihiina ku dareen. war adeer Soomaaliya quruumaha caalamka oo dhan baa ku loolamaya. qofkaan haysan damaanad ama dawlad lahayn oo qaran daafaca waaya dambi duul kala geestaa dusha looga raraa. war dawlad waa leenahay dulmiga Kenya waxa ka qabato dhabtii iyo xaqiiqdii la dhaaf lagana dheeraaye daraartii iyo habeenka dambiyo toos u dhacayaane dhirif iyo hadbana kii dhib qaba dhiidhibow furane dhudhun adag hadduu waayo iyo xoog u soo dhiciya dhawaaq waa inuu ciirsadiyo qayladhaan kulule dhiig iyo naf iyo maal Hormuud dhaawacyadii gaaray dawladdeennu maxay dhabarjabkaa uga dhagoolaysay. wargabaygaagu update ma ahane abwaan cabdidhuux shalay wuxuu yidhi inta jawigu sidan yahay xaalku jahawareer yahay bulshaduna jarriban tahay jid kastaaba xiran yahay caasimaddu jeel tahay naf waxaa u jeeddaa kollay jiibsan mayse jaallayaasha sare tegey jawaab baan ka sugayaa. 2 sano kadib baa loo soo jawaabayaa abwaanku waana mahadsan yahay. dulmi daa'inkay daaqma saaree dad iyo duur ma leysku deedaa la yidhi kan barooranaya ma barakacayaashii hargeysa xalay ku gubtayba ma inta guryihii ka gubtaan baad misare ku sii diganaysaan. war ayagoo dab qabsaday ayaan ka baktinay maanaa gubinay. war shiiqaha masiiba naxdin luhu ka dhacday doofaarba masiibada waa laga sheegayay. war shiiqa dhacdaa ka dareen laga dhageyso warka lima xaaskiisa oo 10 caruur dhashay 5 xabadood ku dhuftay hadda waxaan maqli jiray limo ceeb reeb kaas waa in la dilaa ceeb ha reebe. war nin Soomaaliya gabar Hindiya qaba ayaa Muqdisho looga afduubtay ciidanka dawladda ayaana ka soo badbaadiyay hadda maanta dalkeeda ayaa loo dhoofiyay. nabeetana ceeb kala oo gabartaas ma dumaashiyaasheera afduubta Soomaaliyu waa dumaashiyaasheera koo dhamme markii ay baasin waxay tiri iskiika mukureenka dil kastana mukuraha ay tiri aryaa ma kace ma kore ma karaan dhagaxoobaan maqli jiray tanu ceeb weligeer ka fogaamayso. nin walbo wadanka wax uu dhaama male war waa heestii qarniga nabee kuwa kan u heesa inaysan kari ka soo habaasin. warna waxaan dhihi lahaa raaxada adduunyada hadduu kii rabaa helayo rakashiya rafaad lama marin lamana riqmeene qof walba rugtiisu nimcada raqi lahaa geese waxaa ruuxda loo dhibahayaa raysa dabadeede rajadiiyo hankuna uunka waa raalli geliyaan runtiisu ilaahu roobniinshan aamiin war ma haysiine booyad qarax lagu soo raa ciidanku gacanta ku dhigeenaa la yidhi aryaa beledul amiinkiiba ciidankii kumaandoosaa ku soo daataa la yidhi war booyad biyaa lagu qaadi jiray waa maxay qaraxuna war ma qaraxun baa ku jiraysan ilaa weligiin laga taga allah idin ammaano yeele.